ka waran haddii dembi aanad lahayn aad u xidhnaato 48 sano kadibna la ogaado in dembigaasi aanad gelin xilligana aad tahay 70 jir. Glenn Simmons waxa uu ahaa kaliya 22 jir markii lagu eedeeyay dilka laba gabdhood oo cadaan ah. waxa uu ahaa dembi aanu isagu shaqo ku lahayn balse in la cadeeyo ay qaadatay muddo ku siman 50 sano. xilliga uu faldambiyeedku dhacay waxa la sheegaa in xitaa aanu joogin magaalada uu falkaasi ka dhacay Oklahoma ee dalka Mareykanka. nus qarni ayaa uu ku qaatay darbiyada adag ee xabsi ku yaala magaaladaasi. isniintii toddobaadkan ayaa garsoore ku sugan magaalada Oklahoma ee dalka Mareykanka waxay amartay in xabsiga laga sii daayo ninkan lagu magacaabo Simmons oo loo haysto dil dhacay sanadkii 1974 kaasi oo aanu isagu geysan. qareenku waxa uu sheegay in aanay jirin cadeymo ku filan oo lagu damaanad qaadi karo kiiskiisa. waxa uu noqonayaa maxbuuskii ugu xukunka dheeraa ee si khaldan loo xukumo gudaha dalka Mareykanka sida laga soo xigtay diiwaanka qaranka ee Mareykanka. amar ka soo baxay talaadadii garsooraha degmadaasi ayaa waxa uu u dhignaa in Simmons aanu wax dembi lahayn xilligan. ninka xabsiga laga sii daayay ayaa waxa uu xidhnaa 48 sano 1 bil iyo 18 maalmood kadib markii lagu helay dilka haweeney u dhalatay waddankaasi Mareykanka oo la sheegay in uu isagu dilay balse aanu shaqo ku lahayn. Glenn Simmons xilligaasi waxa lagu xukumay dil toogasho ah balse mar dambe ayaa loo bedelay xabsi daa'in sanadku markuu ahaa 1975. dadka sida khaldan loo xukumay ee Oklahoma waxa la sheegayaa in ay xaq u leeyihiin magdhow gaadhaya $170,000 Mareykanka. Mr. Simmons oo xilligan jira 70 sano waxa uu la tacaalayaa kansarka beerka.